midun buu ku heshiiyaa markuu isu yimaado saddexda shariicada islaamigana way qiraysaa ta bini aadamku uu caqligiisa ka qorayna waa qiraysaa kow in la iscafiyo inta la heshiiyo la wada hadlo la garnaqsado la iscafiyo waana dhaqan Soomaalidu hore u taqaanay waa dhici kara in sulxi la sameeyo sulxigu waa compromise in la isu tanaazulo oo cidana waxaanay ka kacdo cidana waxay ka kacdo meel dhaxal la isugu yimaado lagu heshiiyo iyo in muhaakama la sameeyo in lagu kalsooniyo loo saaro loo garnoqo oo cidii gardaran la yiraahdo gardarantay oo garta lagu noqo saddexda dariiqada binaadamku caadina wuu yaqaana shariicaduna wayna fartay idan waxaan leenahay waxa koowaad ee majaalka ee tacaawunku ka bilaabmi kara wa xasaasiyadkan qabaligiisa ay u joogsan karaan waa in bulshada dhexdeeda heshiis laga raadiyaa haddii islaaxu uu dhaco oo heshiisku yimaado xuruubta joogsanaysa tadaafuca joogsanaya wax badan oo marka la tacaawun kara baa imanaya kalabaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan majaalka tanaafuska in wajhadiisa ama meeshuu u jeedo la saxo bini aadamku loolanka noloshu ka mid yahay bini aadamku wuu loolama laakiin waxa isweydiinta le maxaynu ku loolamaynaa ma inaynu isdillo ma inaynu siyaasno ma inaynu isboobno ma inaynu isxaqirro mise waxaynu ku loolanaa wax waxaa ka gedisan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wicaagii qabaliga ahaa ama weelkii ama unitkii qabiilka muu duminin laakiin wixii mabaadi asmaa buu sameeyey mabaadi waaweyn ay rumaysayin oo iyaga ku loolamaan khayrku ku loolansiiyey jihaad bay ku loolameen meel saray ka fakereen oo aan ahayn reerkan yar iyo waxa kan ee reerkii wuxuu ka fakeray inuu dunida mas'uuliyadda ka saaranta makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan inuu reerkan yar uu mas'uuliyadda ka saaranto inuu diinta gaarsiiyo reerihii yaraa ee mas'uuliyadda qaaday ayaa diintan aad arkaysaa caalamka gaarsiiyey iyagoo reerahooda ay dagaalka galeen dagaaladu markay adkaadaan Khalid bin Walid markuu Yamaama u taag waayay war waa isu kay dhex gasheen kala baxa buu ku yiri reer walba dhan dagaalka ka gal reer Bani Hanifa saasa lagu jabiyay inuu koox walba muhaajiriin iyo ansaar dhan u saaro reeraha kalena uu dhan u saaro tanaafuska wuxuu nabigu ka galiyay alayhi salaatu wasalaam fil khayr hadda meelaha Soomaaliya nabadda ah ama wadankii dhulalka nabadda ah waxaad arkaysaa reeraha qaarkood oo ku baratamaya wadooyin la dhisay iyo masaajid la samaystay iyo caynkan waa nooc min alkhayr waa unity jira oo wax ururin kara oo wax isku darsan kara oo wax samayn kara laakiin meesha loo jeedinayo inay noqoto meel khayra wax wanaag ah inuu dadka ka shaqeeyaan idan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u saxay majaalkii ku tanaafusayeen ama loolanku meesha uu ka imanayay oo ah in